akhrisku waa kobcinta maskaxda bini'aadamka waana waxyaabaha suurtageliyay in qofku la yimaado hal abuurnimo ama fikir uu ku horumarinayo aqoontiisa waxaana magaalada Hargeysa ku soo badanaya goobaha wax lagu akhristo oo ay yimaadaan ardayda jaamacadaha iyo dadka hal-abuurka u leh gudbinta wax qoraalka kuwaas oo wax akhriskooda u soo doonta maktabadda Ziraya National Library oo loogu magac daray madaxweynaha hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Zirayo Cabdifataax Daahir Cali oo aan kula kulanay maktabadda Ziraya National Library ayaa sheegay in horumarinta aqoonta qofka ay ku xiran tahay wax akhriska magacaygu waa Cabdifataax Daahir Cali haddaan ka jawaabo su'aashaadii weydiisay oo faa'iidooyinka ah wax akhrisku leeyahay waxa weeyaan wax akhrisku faa'iidadu leeyahay kooda dhargsanahay aqoonta qofkuna waxay ku dhisantaa wax akhris qofka ama arday ahaado ama yaanu ahaane qof bini aadam ahaado kama maarmo marna inuu wax akhristo waayo suu jirkeenu ugu baahan yahay cuntada ayuu ugu baahan yahay maskaxdeeduna ugu baahan tahay wax akhris aan aqoonteena u kobcino marka kolba qofka aqoontiisa iyo dharka iyo dhibadka leeday waxa ku xiran tahay inta uu akhriyo oo kan ilaahay yiraahdo hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina la ya'lamuun cilmiga la sheegay wuxuu ku xiran yahay wax akhris kuma cilmiga looma waxyeedo qofka bini'aadamka qofku wuxuu ku helaa cilmiga markuu akhriyo Axmed Daahir Cilmi oo ah asaasaha maktabadda Ziraya National Library ayaa SBC uga sheegay qaabka ay u bilaabeen hirgelinta maktabadda arrinkan waxaanu bilownay 2010kii ayaa fikirku nagu dhashay anigoo markaa gudoomiyaha jaaliyadda ariga Ingiriiska ee Somaliland Society-ga waxa aanu dabeedna dhulka waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ee hore Axmed Maxamed Zirayo ayaa dhulka inta lagu 6,000 oo square meter magaalada bartakeeda bixiyay budgetkii horeeyana iyaga runtii ku daray dabeedna fundraising baanu u sameynay alxamdulillah saad la socotaan maanta qaybtii hore way noo dhamaatay dhowr qaybood buu library-gu u qaybsamaa qayb tii hoolkii weynaa ee wax lagu akhrisanayay oo bugaag culum kala duwan ay yaalaan iyo qaybihii aanu kala saaray culumtaas u kala baxayeen waxa kale oo aynu sameynay marka qaybtan aynu fadhino qaybta carruurta waxaanu insha Allah rajaynaynaa mobile library isagana inaanu sameyno sidoo kale Faadmo Xuseen Cali oo la kulanay iyadoo akhrinaysa buug ayaa dhinaceeda sheegtay in akhrisku koriyo maskaxda qofka waxaana xustay nooca buugaagta ay xiisayso inay akhrido magacaygu waa Faadmo Xuseen Cali wallahi walaalo waxaan ardayda jaamacadda dhameeyay aroorkiis ma shaqeeyo marka laakiin waan imaadaa wax akhriskuna waa qayb maskaxda ku kortaa sidoo jirkeenu koray wax akhriskana maskaxda ku kortaa marka waa meel fiican tayale intan in laga sii kordhiyana rajayna insha Allah buugaagta ugu badan kuwa nolosha qofka bini'aadanka ka sheekeynay ayaan inta badan jecelahay inaan akhriyo markii hore maan jeclayn laakiin wax badan markaan akhriyay waan ku jeclaaday sababtoo qofku markuu raad ka tago noloshiisa oo dadka nolosha ku guuleystay muhiim weeyaan bay inay wax qoraan marka wax qorista maan jeclayn laakiin imika wax akhriskan ku jeclaaday Axmed Daahir Cilmi asaasaha maktabadda Ziraya National Library ayaa mar kale sharaxaya qorshaha higsigooda la xiriira ballaarinta wax akhriska runtii waxa noo qorshaysan imika waxaanu ilaa hadda aaminsanay inaan 30% ama 40 aanan gaarin hadafkayagii waxaanu doonaynaa inaanu ilaa 2-3 dabaq oo kale ku daro lecture hall halkan laga dhiso in qaybtan carruurta oo qalab badan u baahan qalabayno waxaanu wadnaa inaan digital library iyadana sameyno insha Allah hadii alla yiraahdo waxa kale oo iyadana aanu jecelnahay in dhaqankeeni suugaanteeni iyadana qaybo badan oo lagu kaydiyo ay jirto waxa xitaa aan imika anigu bardawad ka imay ariga Ingiriiska British Library-gan la kulmay 100 sanadood u dambeeyay ama in ka badan waxa la wixii bugaag hayeen ama la inaga qoray mid walba koobi baa yaala inaan mid walba koobiga helno oo aan dalka taariikhdeeni iyo bugaagtii la inaga qoray aynu helno qaarna wad iibsanaysa qaarna koobi bay ku siinayaan marka waxa weeyaan hindisaha iyagu ilaa halkaas ayuu runtii insha Allah jeceli iyo inaanu gobolada kale oo dhanna gaarsiino ama la shaqeyno akhriska ayaa la aaminsan yahay inuu yahay nafaqada la siiyo maskaxda bini'aadamka isla markaana ballaariyo garaadka iyo garashada qofka Khalid Ibrahim Abdi warbaahinta SBC Hargeysa